السلام عليكم magacaygu waa Ismaaciil Aadan kanaalka iga daawanaysan waa Ismaaciil Official fadlan haddii aad ku cusub tahay YouTube channelkayga subscribe saar hana ilaawin inaad like garaysid mahadsanid shan tallaabo oo aad ku gaari karto himilooyinkaaga nolosha dadka inta badan way yaqaanaan sida ay u dejistaan ahdaaf nololeed ay ku salaysan habka smart laakiin dhibaatada ay wajahayaan ayaa ah wadadii ay u mari lahaayeen gaaritaanka hadafkooda nololeed qofku inuu leeyahay xamaasad ayaa ah natiijada koowaad ee bilowga wanaagsan laakiin waxaa dhacaysa inta badan in xamaasadaasi shuuqdo oo noloshii caadiga ahayd ka adkaato daraasad la sameeyay ayaa sheegaysa in 10% ay dadku dareemaan inay hadafka nolosha xaqiijiyeen haddaba sidaad u samayn kartaa qiirada kuu suurtagelinaysa inaad hadafkaaga nolosha xaqiijiso haddii aad diyaar tahay oo ay kaa dhab tahay waxaad u baahan tahay wadiiqo aad marto qodobadan soo socda waxaan kugu soo bandhigayaa sidaad hadafkaaga nololeed ku beegsan lahayd oo aad ku gaari lahayd kow ku dadaal inaad yeelato ahdaaf smart ah ahdaafta smartka ah ee waqtiga go'an leh waa kuwa guusha lagu gaaro hadafka smart waxaa loola jeedaa ama wuxuu u taagan yahay xarafka s ama xarafka s hadaf go'an tusaale ahaan waxaan doonayaa inaan hanti yeesho waa hadaf guud oon la hubin laakiin markaad tiraahdo waxaan doonayaa inaan helo $10,000 bishii waa hadaf xadidan oo go'an xarafka m wuxuu u taagan yahay la qiyaasi karo hadafka aad gaarayso waa inuu yahay mid la qiyaasi karo oo kalbo halka uu gaaray ayaad qiyaasi kartaa xarafka e wuxuu u taagan yahay la gaari karo marka aad samaysato hadaf aan la gaari karin niyadjab mooyaane wax kale kama dhexlaysid xarafka r wuxuu u taagan yahay noloshaada xiriir la leh hadafkaaga nolosha waa inuu la jaanqaadi karaa nolosha caadiga xarafka t wuxuu u taagan yahay waqti go'aan lagu gaari karo labo dhammaadka ka bilow kadib si tartiib ah ugu soo laabo bilowga si aad u xadayso marxaladaha kala duwan ee hadafkaaga marayo eeg waqtiga aad haysato iyo hadafka aad doonayso inaad gaarto samayso ahdaaf yaryar oo kan ka weyn aad ku gaarto tusaale haddii aad doonayso inaad 6 bilood ku ururiso $10,000 samayso ahdaaf yaryar oo isku day inaad bishii hesho dakhli ku dhow $2,000 si 3 bilood ee ugu horeyso aad u gaarto $5,000 3 bilood ee ugu horeysa aad ku kala baranaysaa wadada saxda ah ee aad hadafkaaga u gaari karto marka aad doonayso inaad lacag badan hesho waa inaad hesho wadooyinkii aad dakhligaaga ku kordhin karto ilaa lacagta dhulka lagama soo ururi ee waa la tabcaa afar shaqooyinka aad qabanayso waqti go'an u yeel markii ay ku kala cadaato shaqooyinka aad doonayso inaad qabato si aad hadafkaaga ku gaarto waxaa muhiim ah inaad howlaha waqti go'an u samayso haddii kale waad isdhibsanaysaa oo maalin kasta sidii maalin kale kugu riixayso ayaad hadafkaaga iyo naftaada gabaysaa shan fulin markii aad tallaabo kasta oo qorshe aad soo dhammaysato waxaa lagaa rabaa inaad fuliso ood ku dhaqaaqdo waana tallaabada ugu muhiimsan qabo howl maalmeedka aad naftaada u samaysay waa sax tani waa shaqo qof kasta garan karo laakiin waa tan dadka intooda badan ay ka gaabiyaan ee keenta inay hadafkooda gaari karin waayaan si gaar ah u xisaabtan oo ula soco horumarka aad samaysato bil kastan xilli go'an oo aad naftaada ku xisaabsiso samayso haddii aad horumarkii aad u baahnayd aadan gaarinin badal waqtigaaga insha allahu tacaala muuqaalkeena halkaas ayuu ku egyahay waxaa inoo ballan ah muuqaalkan muuqaalkiis xiga